Wasaaradda Dekadaha iyo Kalluumaysiga Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay jiraan khasaare ka dhashay dabaylo xooggan oo dhawaan ku dhuftay xeebaha gobolka Mudug gaar ahaan degmada Hobyo ee gobolkaasi. Baashi Cali Xaashi wariyaheenna ayaa warkan inoo soo diray. Mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Dekadaha iyo Kalluumaysiga Galmudug oo warbaahinta qaranka Soomaaliyeed kula hadlay magaalada xeebeedka Hobyo ayaa sheegay in khasaare kala duwan uu ka soo gaaray dabaylo xooggan oo ku dhuftay xeebaha Hobyo kalluumaysatada reer Galmudug. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Xaashi Cali iyo sidoo kale agaasimaha waaxda wax soo saarka Wasaaradda Kalluumaysiga Dowlad Goboleedka Galmudug Cabdirasaaq Maxamuud Axmed ayaa iiga waramay arrinkaasi. saakay ilaa iyo xeebta waxaan marnay ilaa iyo labad baan tagnay waxaan soo aragnay gaadiid badan oo burbursan oo dhibaato xoog leh ka muuqato dadka shacabka gaadiidka isticmaala markaa wareysanana waxay noo sheegeen maca shamaagihii badda ugu jira macayna baddi kala tagtay gaadiidku saan u baaba'san yihiin oo dhibaato fara badan ay haysato marka waxaan baaq u dirayaa dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda dekadaha iyo gaadiidka badda in dadka masaakiinta oo awalba muruqmaalka ahaa oo meeshaas dhibaatadaas ay soo gaartay in ciddii hadday wax ka caawin karaan doomo hadday noqoto hadday shamaago noqoto hadday tababar noqoto intaba inay kala soo gaaraan oo dadkaas ay caawiyaan masaakiinta oo hadda laga yaabo nin awal maantii xabad kalluuna ama xabad aad argoosataa badda kala soo baxa suuxii ilmaha quraac uga dhigan jiray inuu hadda la yahay meelahaas uu haba qof u tagayo leeyahay waniga maanta $1 ii tuur. For example, wiiga hore waxaa timid dabayl aad iyo aad u xoog badan taasoo sababtay in ay dhammaan boqolkiiba agabkii badda u yeelay kalluumaysatada iyadoo ay xilli kalluumaysi inuu baaba'o sida shabaagihii jilbihii waxay badda geysteen. wiiga hore kormeer baan ku sameeyey waa tegey waxay yidhahdeen ma haysan agab boqolkii ninkii 50 baa u baaday nin 60 baa xataa noqotay taasoo maaragtay ay keentay climate change cimilada isbedbedelaysa oo mararka qaarkood taasay way jirtaa sida kale naturalka ah kalluumaysatada yaryarka ahi waxaa hadda shaqeeya maaha kalluumaysatada waaweyn oo dooyo ku shaqeeya waa kalluumaysatada yarar oo isticmaalo doon 6 mitir ilaa 5 mitir ah oo matoor yar daba saaran yahay. hadalkan Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ku soo dheegmaya xilli maalmihii la soo dhaafay dabaylo xooggan ay ku dhufteen xeebaha ku yaala bartamaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland iyo Galmudug kuwaas oo khasaare baan ka soo gaaray muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka kalluumaysta xeebahaasi. Baashi Cali Xaashi warbaahinta qaranka Hobyo.